السلام عليكم كسروا هذا كنال كنا حقوق الميديا ما توحن سوق هذا قيمت كوبات تاريخ ذا أضل في الدولار وحاول دشين لباتنكي أبريل كسيدت بقول سغالي ستيتنكي وحاول كل شيء مقالة ذا برونا أو مركز كميدا هاي بقول تويدين نمزا إلوسترهنغري إمي كان وحاو كترسانايد أستراليا وحاوها المهي أفراد قيسكولا ككوبنا لحعرورة وإسكو دالين أدلو سيدلر يحاسكيسي صدحاد كلارا بولزين به أليس وحاوها وعال أن شرعي كدالان آخر كينا وحاو قاتي مقعنينكي وسده يدي وآها جوهان جارو سيدلر magacan hitlerna magacyo badan ayaa ka eegyahay kii deganaa mutulka magaciisa asalka ee Adolf Hitler laba erey oo ikhraaraan ah oo isku raran oo ah qof maamuus leh ama madax ah iyo wolfi oo ah yeegii maamuuska lahaa marka la isku darana macnaheedu waa yeegii maamuuska lahaa lixda walaalaha ay ahaayeen isaga ka badbaaday inkastoo aabihii gabadh kale caruur ka dhalay diin ahaana waxaa ka dhashay qoys Kirishtaan ah balse isagu waxa uu xambaarsanaa aragtida iyo fikradaha ilxaadka iyo amaaniyada dibadda ku ahaya dhanka nasiibkiisana haddayn hoos u eegno inkastoo isagu naftiisa wacal lagu xumaan jiray balse kama u fogeen qoyskana waxa lagu xaman jiray inay yuhuud yihiin hooyadiina waxay u shaqayn jirtay guri ayaa lahaayeen dad yuhuud ah oo waxaa la arki jiray markasta iyadoo uur leh ama uur caloosha ku sidaa asal ahaana ma uu ahayn jarmal saafi ah waxa uu ka soo jeeday boqortooyadii Austria-Hungary dhacdadaasina waxay Hitler gelisay in colaad weyn u qaado yuhuudda waxayna yuhuudda ay mamnuuceen inay gabar jarmalahi guriyahooda ka shaqayso aabihii waxa uu ahaa nin go'aan u daran reerkiisana dhib weyn ayaa u geysan jiray caruurta iyo hooyadoodba Adolf waxay u go'aansadeen inaanay ooyin marka uu aabahood buudh kala dhacayo ama ku qaraacayo qoyskooda wuu burburi lahaa oo dhowr magaalo ayay kala degeen Hitler waxbarashada way isku fiicnaayeen intii uu yaraana wuu ku dhaganaa waxbarashada balse imtixaankii u dambeeyay ee fasalka 6 uu ku gudbayay ee uu galay sekretariga ayaa u dhacay aabihiina waxa uu dhintay bishii 3 January 1903 waxa uu dhintay 1903 marka uu dhintay 1903 waxbarashadiisa isana kama soo laaban isagoo 16 jir ah ayuu iskaga tagay dugsiga shahaadadiina kama u qaadan dawladda ayaa isku dayday inay deeq waxbarasho siiyaan hooyadiina xooga dhaqaale ayaa ku caawin jirtay 20 December 1907 ayaa dhimatay hooyadii kadib markii uu kansarka naasuhu ku dhacay deeqiisi waxbarashana inantoodii ka yarayd ayaa la siiyay walaashiisii ayaa la siiyay hambigiisuna waxa uu ahaa supervisor shaxanle ah kuliyadiisina wuu dhigan jirayna 2 goor ayaa ka diiday inay gacanta u siidayso sanadkii 1909 wuxuu qaatay darbi jiifnimo iyo dib jirnimo 1913 ayaa u soo baxday hawlgal dawladdu soo saartay hawlgal hor leh isagoo dhalinyaro ciidan laga dhigayo isagoo aan doonayn ayaa uu ka baxsaday oo u baxsaday halkaas iyo Munich markii uu bilaabmay dagaalkii koobaadna Hitler ayaa iskii soo galay dagaalkii ciidamadiina isqoray
ka qayb qaatay dagaalkii, wuxuuna ciidanka ka noqday xubin firfircoon, waxaana uu noqday fariinsidaha joomada ciidanka dalka Jarmalka dhambaanada u kala qaada. taasina waxay ahayd shaqadii ugu adkayd ee la qaban jiray askarigu qaban jiray. markaad weerarka u kala qaadaysid dalka iyo wararka, markaas ay kugu dhici karaan dagaalkii oo socda, xabaday lagugu shaandhaya dhici karaan, laakiin isagu waa xubin sare ayaa uu ka ahaa waxa uu doonay horumar ka gaadho. assalaamu calaykum. qaybtii koobaad halkaas ayay ku xidhan tahay. la soco qaybta labaad ee taariikhda adolf